والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحونا جمهورية الصوماليلاند علماء waaweyn ee qiimaha iyo qadarinta mudan ee madashan fadhiya tartamayaasha quraanka kariimka ee ka kala yimid gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan iyo mas'uuliyiinta dawladda kale ee madasha inala joogta dhamaanba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سلام كدي فرحة وين بيناتها قلبتها إن أنا وصل بقطان قصر مدحتوية جمهورية الصوماليلاند هل كاني وقصر اللغة اللي يقرأ كان مدحوينه ومدو وحفيز كيسوها وحلقوا قابلة تدك أنت حرمة هي حشمة مدن تدك أنت ملقاها هي ماموس كله ayaa lagu qaabilaa maadaama halkan ay taalo maamuuskii ummadan oo dhan oo madaxweynaha qaranka joogo laguma qaabilo cid aan maamuus lahayn afka qaladna protocol baleeyahay waxa lagu qaabilaa martida iyo madaxda dawladaha ka socda dawladaha dhigeena martida iyo madaxda ka socota lagu qaabilaa waxa lagu qaabilaa madaxda hay'adaha caalamiga ah waxa lagu qaabilaa madaxda kala duwan ee ummadan leedahay haday tahay madax dhaqameed iyo madax siyaasadeed waxa lagu qaabilaa dadka ahlu quraanka dad fara badan oo dhalinyarada jira oo qaranka leeyahay oo da'diinan oo kala fursadan ma helaan waayo dadka yimaada waa dad waaweyn oo mas'uuliyad xambaarsan laakiin idinka oo yaryar oo da'daasa waxa ku timaadaan madashan iyadoo culimadii dalkuna idin hor kacayso waxa weeye qiimaha quraanka iyo muxuu ahaayay qadarkaas ku timaadaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mas'uulka ugu sarreeya dalka wuxuu mas'uul ka yahay adkeynta iyo sugidda nabadgelyada ummadda wuxuu mas'uul ka yahay اسمها ودوينك ريبوردada dekadaha wuxuu mas'uul ka yahay horumarinta aqoonta cilmiga wuxuu mas'uul umada uga yahay oo qorshe u dhiga sidii qaran u horumarin lahaa ganacsigooda dhaqaalahooda miisaaniyadooda soo kobcin lahaa sidoo kale wuxuu mas'uul ka yahay ilaalinta iyo dhismaha diinta dhiirigelinta daayirta quraanka barata ayuu mas'uul ka yahay madaxweynuhu isagoo oo xilka gudanaya ayuu sameeyay qorshaha inuu tartanka bilaabo ridaacad quraanka kariimka oo u gaar sameeyo inuu barnaamijyo fara badan sameeyo inuu masaajid dhiso inuu waxaas oo dhan xikmadaas looga golay inta kadib waxaan leenahay ugu horreyn waxaan hambalyeeynaa dhammaan dhalinyaradii ka kala timid gobolada ee tartanka quraanka kariimka ka qayb gashay 18 arday ee ka kala yimid gobolada dalka waa hambalyeeynaa waayo waxay ahaayeen dad la soo xulay oo gobol walba laga soo xulay si gaar ah waxaan u bogaadinaynaa ardadii kaalmaha sare galay gaar ahaan halkan jaaysida madaxweynuhu ku sii doono iyagana si weyn baan u bogaadinaynaa waxaan bogaadinaynaa waalidkii ku tabcay muxuu ahaa suurto geliyay ku hagay dhabada iyo dariiqa waa dhiirigelinaynaa waa bogaadinaynaa sidoo kale waxaanu hambalyeeynaa guddigii imtixaanada culimada ee imtixaanka qaaday tartanka quraanka kariimka iyo culimadii hawsha isku dibariday farsamo ahaan oo Sheekh Maxamed Aadan uu ugu horeeyo dhamaantoodba waxaanu leenahay ilaahay khayr ha siiyo miisaanka xasanaadkoodana arrimahaas ha ku biiro waxaanu leenahay dhalinyarada guuleysatay waxaanu ku dardaaraynaa halka ka sii wadaan gacan ku haynta quraanka iyo barashada diinta cilmigu waa bilow cilmiga lama dhameeyo waxaanu leenahay kuwa kalena maalmaha kamid ah guuleysan doontaan haddii alla ka dhigo waxaan idin jeedinaa idinkana guulo kale
dhammaantiin waxaan idinku dardaarmaynaa in aad diinta ilaalisaan oo ku dhaqantaan inaad dadka intayada kalena nooga faa'iidaysaan sidoo kale waxaanu iyadana hoosta ka xariiqaynaa oo idinku waaninaynaa inaydaan qaadan afkaaraha xag jirka ah ee sida qaldan diinta loo tarjumo maanta dad badan oo inaga mida oo muxuu ahaayey inala mida ayaa si qaldan diinta u tarjumay oo dhibaato badan ku haya mujtamaca muslimiinta waxaanu idinka rajaynaynaa oo aanu idinku waaninaynaa inaydan dariiqaa marin ee amartaan dariiqaa culimmada gacanta idinku haystaa ay idin jideeyeen ama idin sharxayaan ugu dambayn intaas ayaan runtii ku ururin lahaa saaxiibkay wasiirka warfaafintana muxuu ahaayey isbarashadii culimmada iyo isku soo dhawaashihii wuu ka faa'iideeyo magacyadoodiina waa bartay caddaan culimmadiina berigii hore culimmada wuxun buu u yaqaanay imka culimmadiina wanaagsantahayna wuu bartay marka qofka jaliisu saalixa ee dadka wanaagsan raaca khayr buu ka helaa iimaankaa u kordha waxbuu ka kororsadaa isagana waa u ducaynaynaa aad buu shaqeeyey aad iyo aad iyo aad berigii hore uu boodi jiray marka culimmada la soo qaado marka isagana khayr baan u rajaynaynaa waana bogaadinaynaa doorku qaatay wasiirka diintana waa bogaadinaynaa sheekh khaliil oo runtii si wanaagsan xilkiisa u gutay arrimaha diinta iyo culimmadana isku soo dhaweeya sheekh maxamed aadan iyo sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh maxamed cali geed iyo culimmada waaweyna runtii iyagana dhammaantoodba waa bogaadinaynaa hadalka wixii aanu culimmada is odhanayno habeen dambe ayaanu dib u dhiganaynaa insha allahu munaasabaddaa weyn waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan